ciidamada xoogga dalka oo isugu jira qaybta 12aad ee militariga iyo sidoo kale kuwa nabad sugidda ayaa waxa ay gaareen deegaano dhowaan dad walaalo ah ku dagaalameen gaar ahaan dhinaca galbeed ee degmada Balambal ee gobolka Galgaduud iyadoona ciidamadu ay dadka kala dhex galeen taasna ay ku guuleysteen. ciidamadan ayaana waxa si wada jir ah u hogaaminayay taliyaha qaybta 12aad Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro iyo sidoo kale Cali Cilmi Ilkaasi oo ah taliyaha ciidamada nabad sugidda. Cali Cilmi Ilkaasi oo ah taliyaha nabad sugidda ayaa waxa uu sheegay in amaradii la soo siiyay ay fulinayaan isla markaana waajibaadkooda uu yahay in dadka kala dhex galaan deegaankana ay ka suuliyaan kuwa dirirta mar waliba halkaasi ku dhex marto. shaqada aan u soconaaho waa dad shacab oo walaalaha dagaalamay waxaan rabnaa si ciidanimada iyo dawladnimada iyo nidaam ku jira inaan la dhaqanno gacanna inaan ayaga ku kala celino gacanna inaan ayaga isaga ilaalino markaan ayaga isaga ilaalino maahan markaan aragno inaan difaac ka galino laakiin dadku waa dadka aan mas'uulka ka ahayn ayaga hub wataan laakiin annaga dawladnimada mas'uulkana waa inaan dadka barnaa dawladnimada iyo shaqada la qabanayo iyo habka nidaamku uu yahay dadkan beelaha isdila inaan kala rarno marka waxa la rabaa halka ay joogno iyo markaan baabuurka saaranahay iyo markii laga dago iyo markii difaac lagu jiro intaba in la foojigan yahay shaqada aan haynaana inay tahay dadkaas walaalaha inaan kala rarno si amniyo dib dambe u dhicin waxaan u soconaa waxa inaan dib dhicin in anagu dib sameeyna maaha waa inaan wanaaga iyo ciidanimada iyo dawladnimada iyo maamulka iyo kala dambeynta dadka gaarsiinaa. dhinaca kale taliyaha qaybta 12aad Cabdullaahi Aadan Xuseen Ciro ayaa waxa uu sheegay in amarkan madaxweynaha Soomaaliya uu soo siiyay taasina ay keentay in halkaasi ay ku baxaan iyagoo dadka dagaalamay kala dhex galaya waxa uuna ciidamada ugu baaqay in dadka ay u dhimriyaan wax waliba oo uga yimaadana ay u dul qaataan maadaama hawsha ay wadaan ay tahay nabadeyn halkaasi u tageen. abkaad u tagaysa farxad wanaag inaad u muujiso asagoo ku caayahay oo ku karaahiyeysanaya oo kule hebel buu u hiilinaya barin hebel uu rabaa inuu kaasikiyo walla waa ku ogahay inaadan adoo qosl lahaya xataa hadduu ku dharbaaxo inaad qosashaa la rabaa tiraada waa mahadsan tahay waajibkaadii ka wadato marka waa idin hambalyeynayna waxaan ku nimid halkaana waxaad ogaataan waa amar madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga ee Soomaaliya ku nimid iyo taliyayaashayada ciidanka nin walba waa la soo amray marka sidaasaan ku nimid waajibkayaga aan qabsanno haddii Ilaahay idmo waana mahadsantiin. saacadihii la soo dhaafay ayaa saraakiisha ciidamada xoogga dalka waxa ay kulamo la sameynayeen qaybaha kala duwan ee bulshada maadaama halkaasi dirir dhowaan ay ka dhacday iyagoona waxa garadka kulamo la yeeshay si loo dhameeyo arinta dagaalka soo celcelisay. ciidamada ayaana halkaasi ka howlgali doona iyagoona ka sameyn doona arrimaha nabadeynta iyo kala qaadista dadkii halkaasi ku dagaalamay. Maxamed Deeq Cabdi Maxamed, warbaahinta qaranka, Dhuusamareeb.